started to read the Quran for one arrogant reason, and that was that I wanted to find a contradiction. You know, I've become Muslim. It was a very painful moment when she said to me, I no longer need to be your mother and you're on your own. To be rejected by your mother is very, very painful. Very, very painful. I couldn't find where I belonged. I felt incredibly lonely, that it became too much. I called my mother and I said to her, please come and take me home. And I stopped practicing Islam. So I took off my hijab. I stopped praying. I distanced myself from the Muslim community. gabadhan hadda muslimadda ah waxay dhibaato badan ka soo martay safarkeedii soo islaamida. caqabadda ugu weyn waxa ay ka soo wajahday waalidiinteeda, gaar ahaan hooyadeed oo dheerisay kadib markii ay qaadatay diinta islaamka. waa kuma gabadhan? maxay ka aaminsanayd islaamka ka hor soo islaamideeda? caqabada intee leeg ayay kala kulantay soo islaamideeda? jawaabaha su'aalahan iyo kuwo kaloo badan ku daawo sheekada gabadhan oo dhammaystiran. gabadhan waxaa lagu magacaabaa Caaliya. waxay ku dhalatay bariga magaalada London. waxay ku soo kortay deegaan ay ku badan yihiin muslimiin Bangladeshi ah, taasoo ka dhigtay inay aragto dhaqanka iyo cibaadada muslimiin badan. hooyadeed waxay ka soo jeeday Italy, aabaheedna waa Afrikaan ka soo jeeda Nigeria. labadooduna waxay ahaayeen Kristaan. maadaama labadeeda waalid ay Masiixiyiin ahaayeen, waxay ku soo barbaartay diinta Kiristaanka. laakiin waxay sheegtay in hooyadeed oo ahayd qof wax baratay kuna takhasustay taariikhda, ay ku tarbiyeysay in wax walba oo nolosheeda ku saabsan ay barato, baaritaanna ku samayso. inkastoo ay ku dhaqmi jirtay diinta Kiristaanka sidaan wax yar ka hor soo sheegnay, haddana waxay su'aalo badan iska weydiin jirtay diinta ay aaminsan tahay. arrinta la yaabka leh ayaa ah in aabaheed uu ka soo jeedo qoys muslim ah. ayeeyadiis oo soo korisay waxay ahayd muslimad, laakiin markay geeriyootay ayeeyadiis oo uu Yurub soo galay ayuu diintii ka baxay. sidaan wax yar ka hor soo sheegnay, gabadhan waxay ku nooleed magaalo muslimiin badan ay degan yihiin. guriga ay ku nooleed waxaa ka soo horjeeday masjid yar. waxay maalin maalmaha ka mid ah daaqada qolkeeda ka aragtay muslimiin ku tukanaysa masaajidka, iyadoo xilligaas da'deedu ahayd 8 sano. aad ayay ula dhacday qaabka ay muslimiintu u cibaadaysanayeen, waxayna mar walba la gaaro salaada u soo carari jirtay daaqada si ay u daawato. maalin iyada oo rootinkeeda iska wadata oo daawanaysa salaad masaajidka lagu tukanayay ayaa waxay maqashay buuq. waxaa aad u murmayay labadeeda waalid. markay aragtay inay ku dhow yihiin inay isgacan qaadaan, ayay gashay qolka hooyadeed. waxay soo qaadatay go' dhulka ayayna goglatay, iyadoo sujuud la dhacday sida ay ka aragtay muslimiintii tukanaysay. waxayna Allah subxaanahu wa tacaala ka bariday inay waalidiinteeda dagaalka joojiyaan. nasiib wanaagna way joojiyeen. arrinta la yaabka leh ee ay sheegtay ayaa ah in intii ay sujuudsanayd ay dareentay naxariis iyo in Allah subxaanahu wa tacaala ay u dhowdahay, waana macnaha dhabta ay sujuudda. And I remember one particular day, there was a huge fight between my mother and father. And I ran to my bedroom. I was about 8 years old. On my way to the bedroom, I took my mother's shawl and I took the shawl and I threw it onto the ground and I made sujood. And I remember I said, God, make them stop arguing. And, you know, at that time, obviously, I was a young child. I didn't know exactly what I was doing, but I was copying what I had seen in the masjid. So that was kind of like my first experience of Islam. waxay kaloo sheegtay 2 sano kadib in ay jirto mar kale oo ay dareentay wanaagga diinta Islaamka. waxay ahayd mar arday ay isku fasal ahaayeen oo muslim ahaa uu shil ku galay agaarka iskuulka una dhintay shilkaas. maamulka iskuulka ayaa dhammaan ardayda ka codsaday in laga qayb qaato aaska ardaygaas. waxay saaxiibteed oo lagu magacaabi jiray Layla, kana soo jeeday dalkeena Soomaaliya, ay weydiisatay inay ku caawiso qamaar ay madaxa saarato si ay uga qayb gasho aaska ardayga. waxay hooyadeed weydiisatay fasax si ay uga qayb gasho aaska ardayga dhintay, waana loo ogolaaday. waxay sheegtay in maalintaas ay u ahayd maalin kale oo ay diinta Islaamka ka dhex heshay naxariis iyo u dhawaanshaha Allah subxaanahu wa tacaala, iyadoo ardayda kale ee muslimiinta ahayd la tukatay salaadii duhur iyo salaada janaasada. waxay sidoo kale sheegtay in markii ay la tukanaysay muslimiinta xilliga sujuudda ay dareentay deganaantii ay dareentay 2 sano ka hor. Caaliya waxay in muddaha ku qanacsanayd dhaqanka suuban ee diinteena Islaamka. waxay sidoo kale aad uga heshay dhaqanka muslimiinta. waxay hore u aaminsanayd jiritaanka Allah subxaanahu wa tacaala. baaritaano badan oo ay samaysayna waxay sidoo kale ku qanacday rumaynta rasuulka sallallahu alayhi wasallam. laakiin cabsida ugu weyn ee ay dareemaysay ayaa ahayd waxa ay kala kulmi doonto waalidiinteeda, qaraabadeeda iyo sidoo kale saaxiibadeedii ay isku diinta ahaayeen. maalin maalmaha ka mid ah iyada oo magaalada dhex lugaynaysa kana fikiraysa waxa ay niyada ka aaminsan tahay laakiin aysan cidna u sheegin waa rumaynta diinta Islaamka ayaa iyada oo rabta inay goyso waddo saxmad ah, gawaare badanna ay marayaan, waxay isweydiisay, If I cross this road and I'm hit by a car and I die knowing what I know, what I truly know, what would that mean for me? Why am I not testifying to that which has already entered my heart? So I took myself home, called my friend, and I said to her, I believe and I need to take my shahada. And that was the weekend, and the Monday I took my shahada. Alhamdulillah.
caaliya sidii filaysaba falcelin fiican kalama aysan kulmin waalidiinteeda khaasatan hooyadeed markay ay qaadatay diinta islaamka waxay xaafadda timid iyada oo xijaaban hooyadeed guriga ma aysan joogin markay timid ayay aragtay aniga oo xijaaban way aamini weysay wixii markaas ka dambeeyeyna wax walba waan waayay ayay tiri caaliya I lost family, I lost friends. I ended up on my own at a very young age. The first few years after becoming Muslim were very tough. sidaan muuqaalka bilowgiis ku soo sheegnay caqabadii ugu weyneyd ee ay la kulantay caaliya waxay ahayd inay weysay hooyadeed oo dayrisay gurigana ka saartay qaadashada diinta islaamka awgeed inkasta oo ay joojisay dhammaan ku dhaqanka diinta islaamka haddana weli way aaminsaneed diinta dhowr sano oo ay hooyadeed la nooleed kadib waxay heshay shaqo waxayna noqotay qof kaligeed nool iskuna filan xorna ka ah dhammaan dhibaatooyinkii ay dareentay markii ay diinta ku cusbayd laakiin sida ay sheegtay hore kama aysan bilaabin ku dhaqanka diinta islaamka maadaama ay ahaana yarayd dhowr sanana aysan ku dhaqmin diinta islaamka waxay dareentay in nolosheeda ay wax ka maqan yihiin sida ay sheegtay waxay si tartiib u bilowday ku dhaqanka diinta islaamka iyada oo xor ah I started to come back to Islam slowly. Coming back to Allah and coming back to Islam, it was beautiful. It was so sweet. I started to pray again and I came back to Islam and I started practicing it again. Alhamdulillah. And it was a beautiful, sweet moment because it was between me and my Rabb.